السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaad daawadayaal waxaan galabta gurigeeda oo ku yaala Garowe ku soo booqday walaal Idil Axmed. Walaal Idil wuxuu dhawaan baraheeda bulshada ku soo qodhay gaar ahaan Facebook-ga. Waxaan u baahanahay dad iga gata kilideeda. Kadib markii soo basti garaysay qoraalkaas yarka abaan anigu la soo xiriiray arrintii baan ka wareystay sababta ay kilideeda u gadayso. Garowe galabta ku soo booqday iyo gurigeeda. marka waxaan idil inaan horta marka hore soo dhaweyno sababta ay kalideeda u gadaysan ayada ayaa noo sharaxi doonta. idil soo dhawow sababta aad kalideeda u gadayso. waan dhawahay maxamuud adiga asxaabtana way salaamaya sababta aan kalida u gaday waxay tahay waxa jirta xaalad qofna moogtay caafimaadkiisa ma jecla kalidu waa meesha ugu muhiimsan xubnaheena bini'aadanka danahay sababta u gaday wax kale ma ahan waxa weeye waxa xanuunsan aniga aabahay muddo 4 sano ah uu xanuunsan yahay xanuunkiisuna wuxuu ahaa xanuun markii hore neerfa ka bilowday kadibna markii uu neerfaha ka bilowdayna waxaa dhacday in la dhaho maxay ahaydey dhabarkaagu ma shaqeynayo siiba lafta dhabarka aysan aad u shaqeynaynin oo ay soo baxday riciradan ay ku dhagan yihiin neerfaha taas oo sababtay sanad iyo bar muddo hadda loo joogo inuu aabahay u socon waayo oo curyaan ku dhawaado xaaladiisuna ay xumaato dhakhaatiir badan oo dalka ah markii aan marinayna waxay ku soo gabagabeeyeen oo xaaladii dhan ku soo koobeen in dalka dibadiisa wax looga qaban karo khaasatan Hindiya anaguna Hindiya ma awoodno inaan aabahay u dirno aabahay xaaladiisa u dul qaadan waayay maadaama ay ka soo darayso mar ka dambaysa ay soo si tarayso taas oo sababtay dadkuna iska reer guuraa weeye oo dad inta badan waxba haysanin meel oo u irkado ama u carro waa garan waaye aabahay caruurtiisa ana ugu weyn wuxuu ahaa aabahay garab kaliya noo shaqeynaya noo socda wuxuu ahaa qofka kaliya ee noloshiina ku tiirsan tahay maadaama uu naga fariistayna noloshii wax badan way adkaatay wax badan oo say noo ahay oo noo ahaan weeday marka anigu waxaa go'aansaday aabahay inta xanuunkiisa maalin walba oo arkaayo dul qaadan waaye waxaan go'aansaday inaan kalideeda u gado waaye marka soo basti garaysay qoraalka oo aad tiri waxaan rabaa inaan kalideeda ciiga gadataa baa u baahanahay tan ku soo xiriiray dad baa ila soo xiriiray laakiin waxa kula soo xiriiraya 90% waxay u badan yihiin dad iska kaftana qofna ma ogaan karo qofka qulubtiisa waxa ku jira ima ka dhabaa ma muxuu ula dameeyaa qof ku wareysanaya male qof walba wuxuu ku soo wacanaya kaftan qof walba wuxuu ku soo wacanaya inuu dhaho maxay ahaydey waxyaabo wuxuu u maleeyaa simbala qof yani dhahay kalideedan gadaya oo yani qofka qalbiga lagu dareemi karaa wax sahlan inaysan ahayn inuu qof oo kalideedan gaday oo tiisa kale bari waxay mudan doonto oo soo haynin laakiin ani waxa soo dhan iima cadda waxa soo dhan waxa iga muhiimsan inuu aabahay caafimaado kalida sheegtay labadaba hadii la dhaho aabaha uu ku caafimaadaya diyaar baa waxa ina u gado aabi waxa ay sheegtay in xanuun uu haleelay marka bal meelaha adkaysan walaha dhakhaatiir tira badan baa geynay Muqdisho ka mid tahay Garowe dhihin meelo adigu inta ugu muhiimsan Garowe iyo waxa ugu muhiimsan iyo Muqdisho dhammaan waxa la isku raacay in qaliin tahay iyagu dalkana waxba looga qaban karin qaliinkuna uu yahay Hindiya saas la aldigeedana waa awoodi weynayna aabaha Hindiya u kaxayno sababtoo ah ma awoodna hadana aabaha dhakhtar Hindiya marka waxaan go'aansaday in aan kalideeda u gado way hadda qof kula soo xiriiro wada diyaar ay hadda kula soo xiriiraan kalidaadi waa ka go'an tahay in aaba u gado hadaydan dhaqaale iyo dad inta kula iyo waxa aadan helin dabcan daan taahilin wax ay taakulay waa ku khasbanahay in aabahay kaliya u gado mid ma ahan xitaa labadaba hadii la dhaho aabaha u gadaysa waa diyaar baa in aabahay u gado sababtoo aabahay waa garabka kaliya anigu haysto caruurtiisa aniga ugu weyn inta kale way iga yaryar yihiin marka waa khasab inaan aabahay kalideeda u gado yahay waagaag daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad ka dirigteen ama hadalka nuxurka gabadha walaashan idil sababta ay kalideeda u gadaysan ayna ogaanay waa aabaheed oo ka xanuunsan hadda aabe xaaladiisa bal horta si kooban hadda wax ku sugan yahay marka u soo dadka aabahay wuxuu ku sugan yahay xaalad ah inuu kici karin masuuliga aadi karin u baahan yahay qof garbaha qabta adigu xaalad inuu 100% qaarkiis dambe u curyaamo siba dhinac kamid ah aad ugu dhow yahay haduu uusan helin dhakhtar iyo wax xaaladiisa dad tacaala marka aabahay waa qof nooca ku sugan hadda diyaar waxa uu tahay soo maaha saa marka hore sheegtay inaad kalidaadan u gado haday dadku soo caawinayaan oo ku soo taakuleynayaan oo kalidaadi ku badbaadinayaan taas ka war
والله دي الحمد لله إلهي wax walba wuu awoodaa qofur raxiim hadaa helo ma muxsanayna walaalahay aabahay iyo caawiya oo aabahay xaaladiisa maxay ahayd iga taakuleeya diyaar baa u ahay in kalideeduna ii badbaado alxamdulillah wallahi markaa aad ba maasantay walaalayaal xaaladda walaal idil waad aragtaan si uu qiroonayso lambarka hoos buu ku qoran yahay ciddii soo wacaysa ciddii taakulo sadaqa la baxaysa ciddii xataa dee keli waa adag tahay qof kelidiisa gadaaya duruufta ahalkaa gaadha waa dareemi kadhaan marka lambarka lagala soo xiriiri karo haddaad dadkan hoos waa ugu qoraynaayo aad bal u sheegto lambarku furaha waa 4 13 14 89 haddaa ugu celiso furuhu 4 13 14 89 oo gelis ah maxaa ku qoran magaca saddexaad idil axmed baa ku qoran maxamed idil ku qoran idil axmed maxamed baa ku qoran oo adiga oo aniga ahaa waaya walaalayaal daawadayaal ilaahay ha idin sharfo waxaan rajaynayaa walaal idil in aad soo taageeri doontaan muuqaalkanna meel dheer ina u geystaan u sheergaraysaan aabaheed allah u caafimaadiyo soo taakuleeya muuqaalkan xiga haddii alla idmo aabaheed baa hadday macquul noqoto aanu kasoo duubi doonaa muuqaalka ku xiga marka garow way ku sugan yihiin saan idiin sheegay anigu idil waxaan ku bartay Facebook oo ay ku soo qodhay kale cid iga gadata u baahanahay dadkii komentiyada ka bixinaya baa aniguna kamid ahaa si gaar ah marka wala soo xiriirey garow way joogtaa walaal idil hala soo taakulay garow wanaagsan